maalinta koowaad ee bisha Soonqaad iyo magaalada Muqdisho waa amin duhur ah oo tabtii lagu yaqiinay wadooyinka magaalada ay ciriiri u yihiin. Cabdiladiif Cabdiraxmaan oo kaabiga jidka dheer ee danwadaagaha ku leh xarun ganacsina wuxuu shaqadiisa u wataa si caadi ah. sanadkan waxay bisha Soonqaad ku soo aadaysaa xilli aanay kaliya cadceedu ahayn mid kulul, balse sicirka suuqa uu meel sare joogo. waxoogaa naruuro ah oo la helay toddobaadyadii hore iyo rajo aan libdhin. mayna isbedelka hadda Ramadaan ka hor buu socday, haddana sidaas loo ku socdaa wax hadda dhibaato zaid ah Ramadaan dartiis oo zaid u noqday ma sheegi karna. sidii Ramadaan ka hor oo gadi jirnay oo gadoyna waxaan filaynaa insha Allah Ramadaanka dhaxdiisa inuu Ilaahay naxariistiisa noo qubiyo insha Allah mardaad ay noo soo jabaan maadaama boqolkiiba 80 ummadda Soomaaliyeed ay ka cabanayaan mardaad khaasatan dhinaca raashinka oo sarakac laga dareemayo. balse ma ahan oo qura bagaashada iyo xataa raashinka qaar kuwa la dhihi karo wax muuqda ayaa ku darsamay marka loo eego Cabdiladiif oo sheegay inaysan iyagu door muuqda ku lahayn sicir bararka jira. walaal horta waxaan ku xirnaa inay dadka soo dejiyo badeecada inay dadka cadeeyaan nahay laastigada ugu dambaysa oo dukaanleyda yar yar horta dadka waaweyn ganacsatada waaweyn haday wax ka dhamaan waxaan sii dhimaynaa boqolkiiba haday 10 dhimaan waxaan baanada hoos u degaynaa abba sidii lagu soo qaada. dukaamada magaalada waxay bisha Ramadaan qayb muhiim ah ka joogaan fududeynta baahiyaha asaasiga ah ee ka jira guryaha, waxaana ay macmiishu alaaba fishaan in bilaha kale looga raqiisin badnaado bisha Ramadaan maadaama ay marka hore caadi iska ahaayeen laakiin Ramadaan dartiis wala ka muujinaa Ramadaan qarash badan la isticmaalo maahno ciida ku jirta ilmihi oo dhar ciideedkeedu wax wada dhan yaani waa cabanayaan cabashadu waa jirtaa raashinka waa qaal waa ku dhahaan laakiin raashin hadda waa qaal zaid waa ma la dhihi kara isku roon yahay sidii horena waa ka daran yahay sidii hore sida burka bariiska sidii soo laakiin burka iyo saliid iyo baasta taas hadda hoogo saruka aan ka dareemayna. badi dunida muslimka ayaa isku raacay maanta inay tahay maalinta koowaad ee Ramadaanka kadib markii dawladda Sacuudiga ay ku go'aamisay habeenkii xalay ahaa aragtida bisha.